بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دمان وسلام يا دقيسياشا waxaan u mahad celinaya idaacadda radio Garowe waxaynu bilaabaynaa barnaamijkeennii ahaa iidsiinta aqoonta aynu aqoonteena ku iidsiinaynay aynu uga farxinaynay aqoonteena aynu kaga farxinaynay walaalayaal magaaladeena waxa ku nool aqoon badan aqoontaas waxa weeye inaga ayayna sugayaan carruurteena markaynu dhar qurux badan u gelino carruurteena markaynu ka farxino carruurteena qalabka ay ku cayaaraan carruurta markaynu u diyaarino carruurtii ay isla cayaarayeen carruurtii ay dariska ahaayeen carruurtii dugsiga qur-aanka wada dhiganayeen carruurtii barxadaha iskugu imaanayeen haddii aysan haysan aabbayaal iidsiiya aabbayaal ka farxiya iyo waalid wax u gada oo ay carruurteennii iyo carruurtaas isku yimaadaan bal qiimeeya arrintaas waxaan ku leenahay marka walaalayaal aynu isku naxariisanno in ilaahay loo naxariisto aqoonteena aynu ka farxino in ilaahayna ka farxiyo innagayna sugayaan innagaa ilaahayna ku imtixaamaya innagaa ilaahayna ku eegaya in ilaahay adduunka dhibaatooyinkiisa iyo musiibooyinka dhinacayna ka mariyo in bishii ramadaan baa lagu jiraa 10keedii dambe in ilaahay loo naxariisto in ilaahay inoo dambi dhaafo in ilaahayna ku daro kuwa naarta laga xoreynayo aynu aqoonteena u naxariisanno aynu aqoonteena u gargaarno aynu go'aan ku gaarno sidaynu ugu ballannay maalinta ciidda carruurta magaaladeena joogta kuwa aqoonta kuwa danyarta kuwa waxa weeyaan rajooyinka kuwa aan waxba haysan iyo kuweena inay isku si u qurux badnaadaan inay isku si u farxaan inay isku si ciidda ugu damaashaadaan si ilaahay inoo ku naxariisto markaynu isku naxariisanaa ilaahay inoo naxariisanayaa qofkii aqoon iidsiinaya aqoon waxaa ku filan $30 waxa uu kusoo hagaajin karaa teleefanka ah 45 akoonka ah 45 46 43 waxa uu kusoo hagaajin karaa qofkii aqoon iidsiinaya 45 46 43 halkii aqoon waxaa ku filan hadduu wiil yahay iyo hadduu gabar yahayba $30 haddii aad aqoon ka qayb qaadatid oo aad isugu tagtaan dhowr qof $1 qofkii bixiya 2 qofkii bixiya 3 qofkii bixiya 5 wixii qofkii bixiya intuba meel bay isugu tagaysaa miisaanka xasanaadkii ku galaysaa sadaqadu maalka ma nusqaamiso waa ay barakaysaa meeshii aad ka bixisay wax badan ka badan ayaa ilaahay kuu gelinaya waxa weeye qofkii aqoon iidsiinaya waa intaas qofkii dhar siinaya cusub qofkii dhar duuga siinaya waxa uu la soo xiriiri karaa 7 35 90 97 7 35 90 97 qofkii dhar cusub siinaya aqoonta qofkii dhar waxa weeyaan duuga siinaya intaba waxa weeyaan muhiimadu inaynu maalintaas ka farxino aqoonteena inaynu dhar xirtaan kuwa aan haysan aynu dhar u xirno inaan kuwa waxay isku qurxiyaan haysan aynu wax ku qurxino walaalayaal marka dhammaanteen aynu waxa weeyaan u naxariisano aqoonta aynu isu taagno qof walba waxa weeyaan maanta waxa weeye waxay maraysaa 27 baa ramadaankii maraya labadaas maalmood oo inoo dhiman boqolkii saddexaad ayaa wax yara ka dhiman yihiin waxa weeyaan aynu haddaynu 300 iidsiino oo aqoona oo danyara oo magaaladeena wax weyn bay noqonaysaa qof walba inagayna ka mid ahow waxa weeye naftaada ka mataal adigoo aqoona oo aan aabba lahayn oo aan waxa weeyaan wax ku iidsiiya haysan oo aan wax ka farxiya haysan kurbada ku hayn lahayd intay la eg tahay waxa weeye qof walba ka fakar qof walba waxa weeye aqoonteena aynu naxariisanno hor ilaahay aynu wax geysanno ilaahay subxaanahu wa ta'aala bangigiisa aynu wax geysanno maalka waxaynu sadaqaysanayno ku leenahay aynu wax ka sadaqaysanno waxaan leenahay hooyooyinka aabooyinka dhammaan bulshada dhan hooyo aabaha waxaan leenahay aaba nagala qayb qaaday barnaamijkan waxay saameynaysaa waa ciyaalkeenii adigu waxaad haystaa ciyaal ku dhahaa aabe iyo uma haystaan aabooda ka hooseeya mana helaan kelmadda aabo marka ciyaalkaagu nasiib wuxuu yeeshay inay helaan kelmadda aabo waxaan leenahay ciyaalka heerka nala idsii nagala farxi aabo maalinta aan wada farxino ciyaalkeena aqoonta iyo kuwan aaba haysto aaba leh ha wada farxaan dhamaantood hooyooyinka waxaa leenahay hooyo dhibaatada aday ku haysataa waxa weeye hooyo haysata ilmihii hadduu aaba dhinto booskii baneeyo allaha u naxariistay waxaa aaba iyo hooyo isku qaadanaysa waa hooyo marka waxaan leenahay hooyooyinka hooyo macaane hawshan adigay ku haysataa hooyada u hiili aan waxba awoodin ciyaalkeena aan iidsiino yoomal iid aan wada farxan haddii ilaa yiraahdo waxaan ka gaarsiinayaa dhowrka ugu dambeeya message buruud cismaan maxamuud sidoo kale maryan axmed xirsi cabdirashiid cali maxamed maasha allah qofkan wuxuu iidsiiyey 2 ilmood waa cabdinuur cabdulaahi maxamuud jasaaka allah dhammaantiin badal khayr qaba ilaahay idin siiyo awlaadda ilaahay idin barakeeyo waxaan leenahay yowm iid aan wada faraxno saaqada ilaahay idin xalaaleeyo sadaqadu booskeedu ma banaanaato ilaahay wax ka khayr badan ha idinku bixiyo insha allah bin kariim
بسم الله الرحمن الرحيم. انتي wax bixisay ay ugu dambeeyeen intii la akhriyay Baaruud Cusmaan Maryan Cabdinuur dhamaan waxa leenahay waxaad bixiseen wax ka khayr badan Allah idinku bedelo maalka Allah idin barakeeyo awlaadda Allah idin barakeeyo bishii Ramadaan 10keedii dambe ayaa lagu jiraa Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisa wanaagsan oo naarta ka xoreyn jiray sadaqadii naas Ilaahay naarta idin kaga xoreeyo Ilaahay jannada idinku geeyo Ilaahay dambigiina iyo dambigii waalidkiin baa Allah ku dhaafo agoon baad ka farxisaan Ilaahay idin ka farxiyo agoon ka walwalayay oo ka kurbaysnaa wuxuu ku iiday ayaad kurbadii ka faydeen Ilaahay kurbooyinka adduunka iyo kuwa aakhirada idin ka faydo Ilaahay caafimaad idin ku siiyo Ilaahay idin barakeeyo maalka iyo awlaadda Ilaahay idin kaga xafido dhibaatooyinka iyo musiibooyinka adduunka iyo kuwa aakhirada Ilaahay sadaqadiina idin kaga xafido walaalayaal aynu Ilaahay hortiis geysano wax aynu waxa weeye Ilaahay dartiis aynu uga farxina agoonta Ilaahay dartiis aynu u iidsiino waxa la bixiyo waxa ugu khayr badan wax Allihii inab abuuray Allihii ina haysiiyay Allihii maalkeena siiyay Allihii awlaadeena siiyay dartiis waxaynu u bixino alla dartiis aynu agoonta u iidsiino alla dartiis aynu agoonta uga farxino alla dartiis aynu agoonta u qurxino in Ilaahay inoo naxariisto in Ilaahay ina qurxiyo in Ilaahay ina badbaadiyo in Ilaahay ina ku dambi dhaafo walaal iidsi agoon hadaad agoon iidsiinaysid waxa weeyaan agoonka waxa ku filan $30 waxaad ugu soo hagaajin kartaa 45 46 43 hadaad dhar cusub iyo dhar duuga waxa la waxaad siinaysid waxaad soo wici kartaa teleefanka ah 7 35 90 97 waxa weeyaan agoonteena aynu ka farxino agoonteena aynu waxa weeyaan iidsiino agoonteena hayna la qaybsadeen farxadda iyo damaashaadka iida qof walba waxa weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiisa wax geyso qof walba Ilaahay dartiis waxa weeyaan wax wala bax maanta waa maalin jimcaha waa ciidii asbuuca waa maalintii saacatul ijaabada ku jidhay waa bishii Ramadaan waa 10kii ugu dambeysay waa 10kii naarta la iska xoreynayay qof walba waxa weeyaan hor Ilaahay wax geyso qof walba agoon ka farxi qof walba agoon qurxi qof walba agoon iidsi in Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagana wax ka wanaagsan iyo wax ka badan uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo ku bedelo bismillaahir rahmaanir rahiim hawshan waxaan ku jirnay adigu Ramadaan waxa bilownay Ramadaan shan bari meelahaasaan bilownay khayr Allah siintii fikirkeeda lahayd intii ka qayb qaadatay intii sutaagtay intii waqtigooda ku hurtay laba anu wax kale inkastoo agoon oo dhan agoon waxba awoodin murugo ay tahay laba waxaan sheegayaa murugo anigu aan arkay maama la soo qoray kaamka waxa ku jirta IDB-yada laba ilmood baa lagu iidsiinayaa baa leeyahay ilmahooda marka intay ilmahooda leegiin lama garanin laakiin kale waa la qiyaastay qof baa qiyaastay waxa leeyahay waa dhowr kale saleele baa lagu iidsiinayaa labada ilmood bay soo kaxaysatay xirada agoonta oo maalintii madaxweynuhu guddoonsiinayay dharkoodiida marka labadii bay soo kaxaysatay ilmo kalena hore u soo kaxaysatay labada ilmood baa helay ilmihii saddexaad cidna ma ogeyn waq fadhiyay ilmihii saddexaad wuxuu ma helin bannaankii ula soo baxday ciyaarkii waxaan arkay ilmaheedii ilmo yar oo ooyaya waxaase marka mid dharkii waysan ku qancin waayo dharka markii hore dharka waa lagu soo wada cabiray qof kasta ilmo kasta dharkiisa uu ku qanacsanaa waa u yeerno waxaan ku nidhi maxaa kugu dhacay maamo waxay tiri hooyadeed baa joogtay waxay tiri dharkii iida baysan helin ma qornayn miyaaban ku marka satimay labadaan qornaa marka labadaan ay ka xanaaqsantaa huna yarka waa loo yeeray isla meeshii baa dhar lagu siiyey marka maamadii baa la wareystay waa dad qof la garanayo oo garow xoogaa fiican deganay oo odaygii qaba Allah u naxariistay la garanayo Cabdillaal baa la dhahaa waa xanuunsaday cudurka kansarka ku dhacay cunuhu uga dhacay isagoo lagu hawl jiro loo oleynayo loo gurayo uu dhintay Allah u naxariisto wuxuu ka tagay marka 10 ilmood maamadu buush bay degan tahay kole Ilaahay baa irsaaqada bixiya laakiin wax lagu tuhmay hadeer ma jirto 10ka ilmood waa la weydiiyay waxa la yiraahday kole irsaaqada Ilaahay waa wasace dadkii ciyaal kale maxaa ugu talagashay waxay tiri dhar iidad anu ma big hadalhayn bay tiri maalin baa la soo wacay hadii la soo wacay waxa lagu yeelay laba ilmood lagu iidsiinayaa wallahi waa farxay bay tiri kuwi kalena way joogan marka maamadu waxa loo balan qaaday 10kii ilmoodba in loo iisiyo sharagarab baa Ilaahay noo suurtageliyay waa la soo kaxeeyay dharkii way wada qaateen ma sha Allah qisa kala ka dhacday meeshii iida aan ku bixinaynay maamo waxa soo gashay shirabaan ka sheekayay maamo indhala labada indhood ba dhaceen ilmo yar oo dhashay 13 jir ah wada wiil yar oo 13 12 aan ku qiyaasay marka way soo istaagtay waxay tiri yaa Ilaahay wax siinaya waan fariisan ku nado marka fariisto waxaan ku nado haye ilmaha yar maada dhalay ana dhalay magacii ay Idris bay noogu sheegtay iyadana shukri baa la dhahaa waxaan nidi aabahood meey waa dhintay bita Allah u naxariisto 5 ilmood weeyaan Idris isaga ugu weyn may ilmaha ka weyn waa afar wiil iyo gabar xagee degantayna meeshii degantay noo sheegtay dadka Soomaalidu xoogaa waa iska been badan yihiin wiilkii yarka wiil yar banaan kula baxay wuxuu yiri aabaha meeyay aabahay waa dhintay qisada ku dhintay ku sheekeeyay intuu wareysanayay islaanta baa nasi wareysanayay
marka isku hadal bay ku hadleen xaqiiq bay ahayd kolley waxay tabanayaan waxaa jirta yani waxaan saa u sameynaynay maanta kale lagama hayn waxay ahayd waxaa jira maamooyin soo tuugsada oo ciyaala aysan lahayn dhabarka soo saarto dhahaanaa dhalay oo lasoo ogaada inaysan dhalin oo yani ay soo kiraystaan camal way soo kiraysanayaan qofkii ilmaha dhalayna kiray ka siinayaan marka maamadu waxay noo sheegtay odaygeeda allaha u naxariistee maalin maalmaha kamid isagoo meel mariya kuwa biraha kole sameeyuu ahaa baa bir ka dhacday nin ka horreeyay baa baqay biskoolad buu iska soo jaray waa ku dhuftay allaha u naxariista waa dhintay halkanay timi marka iyadii ciyaalkeedii waxay tiri ninkii waa la weydiiyey ninkii waa dhintay allah u naxariista baan maqalnabay taan marka ninkii dawo nin loo jeedo waa la weydiiyey wuxuu yidhi ninkan waan ka shakiyey waxaan mooday inuu ii raacsaday qori dabadeednada waxaansi intuusa kala hormar wayna dhacdaa mararkaas khaladkaas allah u naxariisto marka waa sii su-aalla waxaan ku niri ka waran ciyaalkaagu maadaama ay wiilal u badan yihiin gabdhahu inta badan gabdhuhu iyaga hooyooyinka caawiya gabadha aa sheegtan ay ugu yartahay ka waran adeeg baan ku niri waxay tiri ciyaalkaygu iisoo adeegaan magaaladeedaasaan dhex galaa muslimkaygaasaan dhex galaa waxaan kasoo helaan guri kula noqdaa ciyaalku way iisoo adeegaan dabka ii shidaan anna waxaasaan googooyaa oo isugu daraa hooyo dabka ka durug bay dhahaan dee qof indheela waa la garanaya waxay tiri gacantaydan ku doondoonaa dabkii meeshuu iga dhow yahay waan ka durkaa marka wallahi qisadaas aad bay qisooyinkaa noo tagteen shanteeda ilmoodna maasha allah waa looga farxiyey marka waxay tiri walaalayaal waxaad isiinaysaan macragtaa soo dhiibtay maxaa ku garatay maxaa dareentay maxaa yani hadalka waxay tiri de waxaan maqlay soomaalida carabtaa caawisa maya baan ku yidhi shacab soomaaliyeed baa ku caawiyey shacabka reegara waa caawiyey agoontan iyagaa ugu talagalay wallaahi waxay tiri maasha allah haddii bisaal soomaali iyadoo is garanaysa isku caawinayso ilaah waxaan ka baryay bogooda balcad isku mariyo marka qisooyinkaasaan aragnay ilaahay subxaanahu watacaala dartiis aynu agoonta u bixino runtii xanuunka ay leedahay agoonnimadu iyo duruufaha dadkeenu ay ku nool yihiin waa wax aad iyo aad u fara badan walaalayaal marka aynu ka farxino agoonteenna aynu u naxariisano agoonteenna aynu idsiino agoonteenna qof walba ogow maalka maanta aad haysatid waad ka tegaysaa qabri baad gelaysaa maalintaas sahay bay kaaga baahan tahay watasawadu fa ina khayra zaadi taqwa wax la sahay qaato taqwadaa ugu qiimo badan ilaahay dartiis oo loo boqo oo ilaahay dartiis aad wax u bixisid ayaa waxa weeyaan qiimo badan qof walba aynu ka farxino agoonteenna qof walba waxa weeyaan waxaad haysatid waxa weeyaan wixii aad kaaga goy kara iyo wixii aad ka bixin kadhig waxa weeyaan agoonta ku sadaqayso qofkii agoon iidsiinaya waxa uu kusoo hagaajin karaa 45 46 43 45 46 43 qofkii dhar siinaya mid cusub iyo mid duugaba waa laga qaadayaa haddaba dad badan ayaa dhar siiyey oo dharkoodii in badan ayaa la siiyey oo waxa weeyaan ilmihii agoontaha markii la siiyey qaar baa dhar waaweyn looga helay waxa weeyaan waalidkood oo waxa weeyaan iyaguna waxa weeyaan meel farxaddii la qaybsaday oo waxa weeyaan iyaguna sababtii agoontooda ku helay walaalayaal marka aynu dhammaanteen aynu gebagabayno ramadaankii waa gebagabo waa fursaddii ugu dambaysay waa bishii raxmadda waa bishii dembi dhaafka waa bishii sadaqada waa bishii naar xoraynta ilaahay inuu naarteena ka xoreeyo aynu agoonta waxa weeye ina sugaysa maanta waxa weeyaan qaylo dhaantaas idaacadda sugaysa aynu maanta ka farxino oo wixii ay ku yidi lahaayeen aynu maanta usoo wada dirno qof walba waxa weeyaan dareenkaaga qiimee bal adigoo sugaya idaacaddaas in wax lagaaga heli doono iyo in kale dareenkaagu seebuu ahaan doonaa waxa weeyaan qof walba waxa weeyaan ka qayb qaado iidsiinta agoonta qof walba uu ilaahay dartiis uga qayb qaado qof walba uu ilaahay dartiis u iidsiye qof walba uu ilaahay dartiis uga farxi in ilaahay wax ka qayr badan kuugu bedelo in ilaahay kaa farxiyo in ilaahay kuu naxariisto in ilaahay kuu dembi dhaafo in ilaahay kugu xafido sadaqada in ilaahay naarta kaaga xoreeyo qof walba waxa weeye ilaahay dartiis agoonta uga farxi qof walba ilaahay dartiis agoonta ugu naxariiso markaynu isku naxariisanaa ilaahay inoo naxariisanayaa markaynu isu gargaarno ayaa ilaahay inoo gargaarayaa markaynu isu kaalmayno ayaa ilaahay inoo kaalmaynayaa walaal ka qayb qaaday iidsiinta agoonta qofkii agoon iidsiinaya waxa uu ku bixinayaa 45 46 43 45 46 43 walaal iidsii agoon ama ka qayb qaada iidsiinta agoonta boqolkii ugu dambaysay ayaynu gabagabeynaynaa 300 haddaynu gaarsiino oo aynu 300 iidsiino waa wax weyn hadday waxaynu ka soo baxaan dheeriyana hadda waxa weeyaan kasii fiican waxa weeye marka walaalayaal carruurteenna waynu qurxinay carruurteenna waynu diyaarinay carruurteenna farxad baynu u diyaarinay meel walba waa u buuxinay laakiin ogaada carruurteenna carruur baa la nool ogaada carruur baa dugsiga la dhigata carruur bay jidka ku wada cayaaraan carruur bay daris yihiin carruur bay is arkayaan aan aabba lahayn aan wax u xilqaba la arag aan wax u fakaray aan la arag aan wax iidsiinaya la arag innaga ayna sugayaan aynu iidsiino aynu ka farxino